oday reer saaxila reer soolna yihiin abtiyaashii dhulbahanto waxaan leeyahay koonfur haddii raacno soo inaga garanayna maaha bismillaahi raxmaani raxiim anigoo oday reer saaxila reer soolna yihiin abtiyaashay waxaan damcay halkan inaan ka jeediyo baaq nabadeed saddex erey oo keliya baan odhanayaa erey waxaan odhanayaa reer Sheekh Saxaab ereyna waxaan odhanayaa xukuumadda Soomaaliland ereyna waxaan leeyahay abtiyaashii dhulbahanta ereyga koowaad waxaan leeyahay reer Sheekh Saxaab waxaa muuqata dareen inaad Soomaaliland ka sheeganaysaan dadka inta kale oo idinka dhaadhacsan tahayba Soomaaliland anaga runtiina waxyaabaha ku doodaan waxa weeyaan annaga u halganay dadka Soomaaliland halganna badan baa ka dhacay halgankii daraawiishta ka dhacay kii Axmed Gurey baa ka dhacay halganna badan baa ka dhacay halgan laguma sheegan karo dhulka waxa leh ciddii Ilaahay ku abuuray ee ku wada abuuray baa dhulka leh gumaysigii wuu qaybiyey Afrika iyo adduunka inta badanba Soomaaliya 5 qaybood buu qaybiyey qaybtiiskee Israaciiyey waxbay wada leedahay waxna ma kala laha marka waxaan oran lahaa meelaha sartu ka quruntay waa sheegashada ummadda inta kale ka sheeganaysa Soomaaliland taada weeyaan oran lahaa habar Yunis waa tala qabeenkii Soomaaliland oo reeraha lagu xanto tala qabeenimo ee ummadda badii hogaami jirtay waxay maanta taagan yihiin waa markayagii waxay uga jeedaan habar awal way qabatay habar jecel way qabatay waa markayagii halka waxa marxaati inayna cid kale waxba uga ogolayn innaga lafteen aynu laandheeraysu sheeganay waxaan oran lahaa fikirka bedela Soomaaliland ummadda wada leh ka haddaan dhaafo dawladda Soomaaliland erey baan odhanayaa gaariga gabay u tirinaya waxa ku jiray dareen baa igu jira inaan hoosba loo dayin fardaa daalay meeshu ka danqaayay heenso reer laascaanood meesha ay ka danqanayaan dareen baa igu jira inaan hoosba loogu dhaadhicin dulka xaadsi weeye halka la taabanayo marka la kicinayo wali lama daweyn waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ee uu hogaamiye Muuse Bixi waxa laga doonayaa dawlad Soomaaliland u wada dhan tahay way u siman tahay waxa aniga ii muuqda in dhinac ay ka raran tahay oo wasiirada aan loo sinayn oo taliyayaasha ciidanka loo sinayn oo talada guud loo sinayn oo hatta diin May oo maalintii qaranka Soomaaliland inaan loo sinayn ee la siiyay SNM oo maalin SNM ay leedahay taasaynu ummadda u simi kari weyn marka taariikhdii SNM laga sheekeynaya ee SNM loogu dabaaldegayo ee SNM lagu xusayo waddanka ma halganna kala ka dhicin miye halgankii ballaadhnaa ee daraawiish xagee lagu tuura miyaynaan ogaan waxa ay baday gumaysigii Ingiriis daraawiish waxay ahayd halganka Afrika ka dhacay ee kaliya ee diyaarada lagula dagaalamo waa taariikh weyn oo guuna waa subcad weyn maxaa loogu xusi waayay diin May la wada leeyahay Axmed Gurey weerar wuxuu ka qaaday ciidamada ugu ururiyay xeebaha Soomaaliland intii ilaa Itoobiya islaam degaba gacanta ku dhigay taariikho dhan ba xusaya meel walba ku qoran yahay maxaa loogu xusi waayay diin May ee loogu ururiyay maalin hebla halkaasaan ka dagaalamay halkaasaan ka daray halkan badan bay qabatay badda firsani laakiin dee waa in lagu wada xusaa halgamadii ka soo dhacay waxa iyaduna xusid badan mudan
Somaliland markay xorriyadeeda helaysay xisbi NUF loo jiray ama nafta lagu magacaabi jiray wuxuu taagnaa war waxayna iskaga darin war dhibaato ka dambayso koonfurada inuu ku biiro waxayna haysan maxaa loogu xugsi waayay inta SNM oo intaas oo ummad ku dhimatay halkana soo gashay Somaliland dib u soo celisay kiima intaaba weerar bilaaya dhicin xamal wax in kasto qadar ku jiro runtii hadana rag ba hor taagnaa oo la jiray maanta Hargeysa laga qaaday dalkan iyo dalkii xamar la isku daray damaashaad hodana ay ku diirso caliyo dabaaldig rag ba diidana aqoontooda lahaa markii xorriyadda la helay rag ba yiri war inoo kaadiya aan wax xubsanay waxa kamid ahaa garaad jaama waxa kamid ahaa maxamed xaaji ibraahim ciga war maxaa ku loo xusway war meeshaan tagayna iska hubina ninkii taagnaa waxaan u arkay 18 May maalin SNM leedahay marka dawladda Soomaaliland waxa laga rabaa dawlad Soomaaliland u simantahay in la dhiso oo wixii qaldan la toosiyo halkaas aan dhigtaa abtiyaashii dhulbaanto waxa leh koonfur aadin raacno Soomaaliga garanayna ma horta waa markii ugu horeysay xaafad baynu wada degaynaa hadaynu tagnaa sidaynu awalba u deganeen hodan dabka iyo kaasa boqon intii waynu wada garanayna haddii intii la inaga buuxiyay xaafad baynu wada sameysanayn kala tagi may haddii Soomaaliland ku birhadeen gaar noqono toon marka waxa haboon horta marka hore inuu wada tashano marhadeena kala tagayna waynu garanaynaa ragga da'daydaasi cadaadiskii iyo jirdiidkii iyo nacaybkii koonfur inaga yimid halkii bay taalaa weli Soomaali qaldaan qaxootiyo gaaja ku keentay waliba halka marka la taga cidda ugu dhiiran ee ugu gacan fudud ee dagaalami doonta oo dhulbaanta barruug wada hadal cidii dagaalami jirtay dhulbaanta waxaan xasuustaa dan taariikheedii ka sheekeeyo 1979 xalanaan ku jiray waxaan isu dilay koonfur iyo waqooyi wuxuu dagaalku ka kacay xamaamada lagu meedhaa yaraa oo kiyuu loo gali jiray dhaqanada uu iska jiray inka reer waqooyigii ma ogola jilibka ilaa xudunta u dhaxaysa in qof kale arka xaasiisa mooyaan koonfurna dhaqan baa jira waxay cawradooda ka qariyaan dumarka laakiin rag uma kala qarsado anoo konton inaan wada degan baa nin qaawanaan ugu dhex mari jiray waxba kuma aha nin reer koonfur soo qaawanin ku sheekeeya ama nigis yar xiran inaan nigiska yar ee cawrada ku muuqanayso ninka Soomaaliland ka gacantiisa ku maydha hadaan xaas lahayn meel qarsoon ku wada hadii kale xaaska u maydha walaashi kula ma dhaco isna nigis yar oo cawradiisa wada muuqato kula soo fadhiisan ma soo qaawan soo dhaqankaasi jira ayaa xamaam kuyuga loo gelayo aan ku heshii weyn waxa jirtay marka uu gelayo nin reer koonfuri in afar inaan la galaan walahay markiisan kula maydhanay anagu ma isku soo hadnay reer waqooyi waxaan goosanay warsan si ma ahayd qaybta aan qaadan wixii inoogu yimaadana aan leyn yana qaybta ha qaata tiiba dhacday sagaal baa nala ka xidha dadkii way fahmi waayeen waxaan ka dagaalanay cid weyn afkaran weyn ilaahay khayr badana siiyeen in la oran jiray shirwa oo reer koonfurashan ahayn Soomaaliland ahayn aan filay Ethiopia meelaha inuu ka yimaana afkartay qaybtii buu na siiyay wargunta waxba lagu maydhan karaa inta uu daayay buu nimanka Soomaaliland sidii ay tahay inuu horgasho waxaan uga jeedaa sagaal kaan in toddoba dhulbaanta ah ariga ka dagaalamo abtiyaal halkaas saydin ka dagaalami anana waan la geliyay inaga hubiyo meesha aynu wada waxaan ku soo gabagabeynayaa halkaas anigu dan kuma arko koonfur waxa ka dhowtaa inaga oo wada tashano oo Somaliland inaynu wada leeyahay heli kara isku dayna oo arrinkii Cali Khaliif Galayr iyo Siyaay wada galeen bixi hoosta dhigay intaynu soo hurgufno aynu isku dayno inaynu socodsiino hadii wax ka dhiban yihiin war waxaan idinku baaqayaa Somaliland la wada leeyahay حتى هدي
aan taal heli karin waxa fiicnaan lahayd oo ka dhow koonfur aynu ku biiro idinkoo Somaliland ka dhex ololeeya waxaan isleeyahay oo inaynu wada noqono oo ololeeya waxaan isleeyahay saddex habrood habar carooto way meesaan samaroon wuxuu baydinka heli ciise wax baydinka heli warsan gelic waxa ka dhow inaad ka dhex ololeysan Somaliland si loogu noqon lahaa hadda kalgacal badan qabtay inaan ka maarno taasoo ka dhow laakiin qodob baan idin xasuusinay xadka yaala ee shanta Soomaaliya qaybiyay waxa ilaashanaya reer galbeedkii sameeyay haddaan idin xasuusiyo mar 77 waxaanu qabsanay Soomaaliya inta ku noosho dhan dabaabada ku daadiyay xadka oo inaga soo saaray sidoo ilaalinaya xadka wadii xadka waxa wada ilaalinaya Soomaaliya adduunka oo dhan wada ilaashanaya waxba kama bedeli karo way adagta si wax uga bedelo waxa iyaduna ka sii adag xadka aynu jaxanaynayno dhaxaynay Soomaalidu labada jilaba isku dhow xad ma wada samaysan karaan waayo dhulka qaar waa baynu wada daaqnaa meelaha qaar gugiina cid baa daaqda jilaalkii ama diraacdiina cid baa daaqda waxa intaaba ka daran reer baabar ku dhac xoolo ka dhamaanaya reer kale meeshoo degaya oo daaqay meesha saara u xidhan oo la daaqay noqon mayse wala degaya waaba ku turmaya waa sheeganaya marka abtiyaal xad siyar oo hawr ay ku jeexi karaa oo cusub ma jiro kii horena way adagtay seen wax uga bedelna taa waxa idinka dhow inaad Somaliland ka dhex ololeysaano bal isku daydaan inuu wada noqon anigu waxaan ku talinayaa Somaliland u wada inaynu doono qodobna way iga dardaaran waxa iga dardaarana dhalinyarta soddonkii sano u dambeeyay kacay ee Somaliland waxa laga dhaadhiciyay Somaliland inaga u halganay oo leh waa reer shaqsa ka dhaadhiciyay waa islaamnimada loo noqdo taarurta laga biyo bulbaantana wuxuu ka dhaadhiciyay wax Somaliland la yiraahdaa ma jirtee waa isaagana qabsanaya warta dhalinyarta laga baabiyo wax jira maaha خوخtaan isku khooxina ay rumaysatay caruurta halaga baabiyo waxa isku ahaan jiray haloo sheeg wali waxaan taariikhda ku daraya siyaad bare waqtiyadii ugu dambeysay ee meel walba laga kacay ee mudug laga kacay ee bari laga kacay ee burca laga kacay ee hargeysa laga kacay wuxuu qaatay siyaasadda Somaliland qaybi oo xukun cadow ka dhigtay inta kalena uu soo dhaweystay Somaliland digtay waxaanu isku dayno iyo isku mashquuliyo isku isaga filaadaan istilaan nasiib wanaag kuma guuleysan taana waxaan doonayaa maalin gaara inaan ka hadlo kuma guuleysan mana ay timaadeen dub intaan burca isugu nimaadno garaad cabdiqaniin shiriyo inaynu Somaliland ku wada dhawaaqno haddii colaadii doonayay ay dhacdo riyaalo oo ahaa nabad sugidda Somaliland oo dhan haystay madaxweyne kama noqdeen haddii tii lagu dhaqmi lahaa Somaliland in la isku diro waa la karsiin waay laakiin dareen baa haray marka ninna la fogeeyo ninna la soo dhaweysto waa la kala shakigii weli weyn haystaa marka waxaan oran lahaa war intaan siyaad bare inagu isticmaalin siyaasadda qaybi oo xukun intii ka horeysay waxaan isku ahayn mowqifka inuu wada lahayn 61 saraakiishii istir la soo noqdayna u kala socnayn kacdoonadaynu koonfuriya xamar ka sameey jiray war waxaanu isu ahayn dhalinyarta loo akhriyo taladan maanta ayaan waxba laga siinin ilaa waxaasaynu ku akhrinay waxaan hadal ku soo gabagabeynayaa aynu u hawlgalno Somaliland la wada leeyahay lagu wada kalsoon yahay lagu wada qanacsan yahay lama wada lahaan karo haddaan kalsooni la isku qabin war cudurrada aan saaro ilaahay aynu ka yaabno ilaahay baa halka inagu xidhay oo xadka xumay xaq darrada aynagu ururiyay seen wax ka bedelaan oo adagta aynu is iimaansano kan Somaliland sheeganayo kada kan la waa leega leeyahay waa la qabsanayo kada cidina dhul baahantay ma qabsan karto qabiilooyinka Soomaaliya taariikhda badan ku leeyahay dagaal oo loo daayay marka waxaan leeyahay aan ku soo wada dabaalo nabad ilaahay hayno aqbalo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh